ugu horeyn laag saar muuqaalkan sabskraib dhaho janaalkeenna adigoo riixaya calaamada gambaleelka mahadsani xalay waxay noqotay habeen kale oo xiisad iyo xamaasad u leh marka la eego bulshada ku nool caalamkan oo maxaa yeelay Liverpool ayaa hooygii ay u yaqiineen taageerayaashooda lama galaayii galgalo waxay ku marti qaadeen Atletico Madrid oo awood u yeelatay lugtii koobaad ee wareegga 16 ee Champions League kana dhacday Metropolitano in ay ku soo shiilatay natiijo gool iyo waxba ah haddii sanadii horena ay u kuftay kooxda Barcelona isla markaana ay ku sameeyeen Anfield Road dib u soo laabashadii qarniga waxay filayeen in mar kale ay dhulka la dhici doonaan Atletico Madrid jawiga ay ku bilaabatay ciyaartana waxay ahayd mid dhulka iyo cirkaba uu la gariiray ciyaartooydii uu ku soo shartagay Diego Simeone xitaa macallimka reer Argentina oo caan ku ahaa boodbood badan waa awoodi waayay in uu boodboodo oo maxaa yeelay waxa helay wax qaboojiyay kooxdii uu watayna macallim Jurgen Klopp dhinac kasteetaba waxa ay soo qaadeen muujado weerar oo dhinac kasteetaba culays badnaa ciyaartana waxay u dhacaysay Atletico Madrid oo difaaca iyo Liverpool oo weerar ah oo daqiiqadii 43 ee ciyaarta goolkii koobaad ayaa yimid ka gadaal markii Alex Oxlade-Chamberlain uu Ponnoni qurux badan ka soo laagay dadabka midig waxaana madax ku dhuftay Wijnaldum oo dhulkana ugu garaacay goolhaye Oblak waana awoodi waayay si kasta uu ugu daba xariiftamay Ponnonigaasi in uu banaanka u saaro again breaking beyond the fullback finding a cross breakthrough for Liverpool dhowr fursadood oo gool loo filan karay ayaa soo martay Liverpool oo u baahnayd in ciidda ay ku tirtirto Atletico Madrid mar kalena ay ka yaabsato kooxaha ka soo kicitima cariga Spain waqtigii loogu talagalay ciyaarta waxay ku soo idlaatay natiijo gool iyo waxba ah waxaana loo baahday in lagu daro waqti kale oo dheeri ah mar kalena jamaahiirta Liverpool waxa ka farxiyay Roberto Firmino oo Pannoni uu madaxa ku garaacay birta ku dhacay dabadeedna u soo noqday goolka oo iska hawinayana caqbiyata ah ku dhuftay halkaasi ayuuna ka yimid goolkii labaad ee gabi ahaanba fadhiga u diiday jamaahiirtii kooxda ka dhisan gobolka Mariseidka He's been waiting for the moment to score his first goal of the season. وفرحين وورياقين جماهيرتا ليفربول وحانا اي يقينسدين ان ديناع كاستيتابا هبين كاله او عجائب له ان اي كسو مرايسو عيدي أنفيلد رود لكن فرحدودي وحا كالا دانتالاي او عيل iyo calooliyowba ugu badalay 25 jir ku dhashay magaalada Madrid kaasi oo noqonaya Marcos Llorente oo 3 daqiiqo kadib goolkii Firmino waati darban nool uu ka baxsaday isaga oo jooga banaanka diilinta ganaaxa Llorente he scored the substitute nets for Atletico halkaasina dhinac kasteetaba waxa ka cadaatay in ay soo gaabatay rajo kasta oo ay Liverpool ka lahayd in ay u tilaabsato wareegga sideedamaadka ee tartanka Champions League goolhaye Adrian oo la islahaara wuxuu noqon doonaa xariif sida goolhaye Alisson waxa uu noqday faras fajaxay oo aanan waxba ka goyn fagaarihii weynaa ee Anfield Road goolkiisana wuxuuba ka dhigayba Marcos Llorente sida doonta u toogo waxaana xigtay mar kale in Llorente uu Pannoni ka helay Alvaro Morata wuxuuna awood u yeeshay in uu jeejeediyo il capitano Jordan Henderson uu ka soo qaado ciyaariyaan iska waxba yahow ah halka roog cas uu u dhigay istaadiyaha Anfield Robertson oo isagana ahaa mid kale oo difaacashadiisu ay xariiftinimo badan ku dheehan tahay halkaasi ayuuna mar kale ka riday darbo rida dheer
Little shooting chance for Llorente. Scored again. Same player. And Atletico Madrid are surely uncatchable now. marka iyo wixii ka dambeeyayna waa niyad jabeen ciyaartooyda Liverpool waana isdhiibeen taariikhdana waa markii labaad oo kulan bugbaxa oo ka tirsan tartanka Champions League ay Liverpool ciyaarayso waqtiga dheeriga kadib Chelsea oo xasuuqday 2008 sidaasi oo ay tahayna taariikhdu ayaaba dhinac u turtay kooxda Liverpool taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye isdhiibidoodii waxay sababtay in gool saddexaad uu ka dhaliyay joogdheeraha reer Spain ee Alvaro Morata. Morata is going clear. There's an opportunity here to finish it off. Alvaro Morata in front of the Atletico fans. natiijo 3 gool iyo 2 ayay dhinac kasteetaba Atletico Madrid ka soo qaadatay istaadiyaha Anfield Road oo ay u yaqaaneen jamaahiirta Liverpool in uu yahay hoy lama galaan waana halka kaliya oo ay ku faari jireen hase yeeshee kooxda Atletico Madrid ayaa dhinac kasteetaba banaanka soo dhigtay waxa uu ku tooran yahay cawskii Anfield Road macallim Jurgen Klopp isna waxa uu diiday in uu ku eedeeyo guuldaradii culayska badnayd ee ka soo gaadhay Atletico Madrid gool haye Adrian waxaana uu tilmaamay in dhowr jeer uu badbaadiyay kooxda halka macallim Diego Simeonena uu ku faanay sida Messi uu dhibaatada kooxdiisa weerarka ugu xalliyo in uu xalliyo obligna marxaladda difaac ee soo wajahda Atletico Madrid oo maxaa yeelay dhinac kasteetaba wuxuu ahaa badbaadiyaha qaran ee kooxda Atletico Madrid la'aantiisana goolka Atletico Madrid wuxuu iska noqon lahaa sida doonta u joogo ciyaarta kale ee sida weyn loo sugayayna lugta labaad ee wareegga 16 ee tartanka Champions League waxay ahayd tii dhaxmartay kooxaha Paris Saint-Germain iyo Dortmund oo dhinac kasteetaba kooxda Paris ciyaartii ka dhacaysay ariga Faransiiska waxa ay gaadhay guul 2 gool iyo waxba intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa faaqidaadii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdirasaaq Tolman halkani waa Tolman Show